السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أمد الصوماليات وان سلاميا فيسبوك إيجاد دعوانيسا ولا ليال وحنين رجالي جمعة وناكسن أو قروح بدن جمعة مبارك أنت أكدب وحن رواينا ديني شاقو إن داد ولا لهنا أو صوماليا أي أون أقول لمن يندرك صوماليات جارهان قبل كجدو haddii ilaahay idmahayo qof walba waxaan ka rajeynayaa ama aan ku dhiirigelinayaa inuu ka qayb qaato gurmadka loo fidinayo dadka oonka u baaba'aya oonka waa waxyaalaha ugu daran ee qofku uu mudan karo run ahaantii qofka cunto la'aan wuu noolaan karaa 30 maalmood ayuu noolaan karaa qofka asagoo waxba cunin hadduu biyo u haysto laakiin biyo la'aan muddo badan qofku ma noolaan karo sidaa la aligeed waxaad ogtihiin in xadiisku sidii uu noo sheegayo islaan aan fiicnayn oo islaamaha aan fiicnayn kamid ah oo inay jannada ku gashay ceel intay biyo ay ka cabtay inay markii biyaha ay cabtay ay aragtay dhoobada leefleefaya oo eegi kabteedii ceelka biyaha inta ugu soo qaaday ay siisay kadibna intaa jannada ay ku gashay ay biyo siisay qof bilo aadan oo walaalka ah oo Soomaaliya haddii aad oon iyo haraad haya aad ka biisid maxaad moodaysaa walaalayaal waxaan la hadlay dad jooga gobolka Gado waxaa la ii sheegay booyada biyaha hayd iyadoo ay ku xiran tahay meesha aad geynayso in booyada meel 35 kilomitir u jirta magaalada Baladxaawo booyada $45 in lagu geynayo meesha ku xigta $70 in lagu geynayo meesha ku xigta oo kasii fog oo meel fog ah gobolka ugu weyn way dalka Soomaaliya in ilaa $400 lagu geynayo marka walaalayaal qof walba wuxuu awood hal booyada hadaad awoodo hadii adiyo asxaabtaada aad booyad wada shubi kartaan qof walba wuxuu awoodo in uu dadkaas ku caawiyo ayaan idinka rajeynayaa insha Allah ta'ala qof walbana wuxuu aakhiradiisa geystay ayuu helayaa marka fadlan hurdada ka kaca oo dadka walaalihiina wuxuu qabta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.